السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارتا شرفتا بدني وولاشين هند عبد روبله waxaan idin leeyahay inta channelkayga ku xiran soo dhawaada maasha Allah intii hore noola joogtay la joogin oo farxadeena ayaan idin leeyahay intiina gadaal naga soo biirtayna waxaan idin leeyahay channelku waa channelkeeni subscribe like iyo commentiga waa dhiirigelinteena hanaga iloobina maasha Allah xaawa waxa aan rabay inaan ka hadalno yacnaha horta marka hore waxaan rabay inaan idin la qaybsado buraanbur yar oo aan ka sameeyay maaragtay quursiga ama yasida Soomaalidu maaragtay qayb kamid ay qaybta kala yasto taasoo maaragtay aan diinteena iyo dhaqankeena midna maaragtay saliiraatoona ku lahayn ummadda Soomaaliyeedna la doonay inay iska wacyigeliyaan oo ay ka digaan oo maaragtay aanu qofna qofka kale ee walaalkiisa aanu maaragtay xaqirin wana dambi sida diinteenaba ku cad marka taasoo maaragtay ay inta dadka waqti aad u fog maaragtay soo jirtay oo soo jiitamaysay inay maaragtay dadku qabiilada qaar ay yiraahdaan maxay ahayd qabiilkani uu nasab maaha ana ka laandheeraysan waxyaabo noocaasa marka waxa la doonay inaan hore uga marno dadkooda wanaagsan adduunyadu maaragtay biladay siisaa kor baa loo soo qaadaa laakiin laguma mashquulo oo magacyo looma bixiyo oo lama liido dadka waxtarka u leh ee bulshada wax ku soo kordhiya dunida inteeda kale oo dhan waa laga maamuusaa magac bay ka leeyihiin marka Soomaalida dhexdeeda baa iyagu isyasa oo kani waa midgaan iyo kani waa laga tiro badan yahay iyo waa kan iyo waxaan maaragtay aan wanaagsaneyn iskula dhaqma marka arintaas waxaan doonayay inaan maaragtay buraanbur yar oo maaragtay aan kaga hadlayo aan idin la qaybsado buraanburkiina waan inoo bilaabayaa wuxuuna ku bilaabmayaa sida tan bismillaahi raxmaani raxiim dadaynu isku dihin iyo isku diirso mahaalinahay dadaynu isku dihin iyo isku diirso mahaalinahay dalkeenana uu mid quraha daa'imkay ka dhigay dalkeenana uu mid quraha daa'imkay ka dhigay qabiilkani lagu duraya manoo damba dadu sharaf iyo wanaag mawlahay ku shubay ninkii la darsahaya qaano duntooda baaran ninkii la darsahaya qaano duntooda baaran dadu sharaf iyo wanaag mawlahay ku shubay shaqadana yaqaano anshaxaad aqoon macdanta nooshii liluklihi yeerna noo samayn macdanta nooshii liluklihi yeerna noo samayn Soomaali gaboohoya weeye midaha balgaaro haddaan ku macneeyo qabiilkanad mahanacdeen haddaan ku macneeyo qabiilkanad mahanacdeen Soomaali goortay ismadhihinaysay maalin weyn Soomaali goortay ismadhihinaysay maalin weyn qabiilka la isku mahagaye maydku dibadayil qabiilka la isku mahagaye maydku dibadayil qoysaan ka mid noqo
noqonin iyaga maanta lagu hubaa dadaan ka mid noqon iyaga maanta lagu hubaa. runtii buraanburkaasi wuxuu ku saabsan yahay maxay ahayd tole qabiilka la yidhaahdo gabooyaha. gabooyaha waa gob, waa dad soomaali maaragtay mansab iyo magacba ku leh. waa dadka soomaalida kabahooda tolo kabahooda, inaguna soomaalida inteeda kalena inay kafantooda tolaan oo waxaad iyo aada looga wanaagsan yahay. caqligu ha shaqeeyo, ha layska dhaafo maaragtay yasida. qofba qofka kale wuxuu kaga fiican yahay waa taqwadiisa iyo intuu ilaahay uga dhow yahay. qof kaga fiican qabiil ma jiro. marka waxaan leeyahay soomaali midnimo, gobonimo ayaan idin rajeynayaa ina ka gudubtaan xumaanta oo gudubtaan wanaag. oo walaashin Hinda Cabdi Rooble oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aragtideena dambe oo xiiso leh insha allah.